waxaan weli ku dhex jirnaa shirkii diasporada ay qaaradda Yurub ay isugu timaaday magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka oo ay qabanqaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyadda Jarmalka oo ayagu hawshaasi qabtay waxaa markaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday qaaradda Yurub waxaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay mas'uul sare xildhibaan Cabdicasiis Xildhibaan oo isagu goobjoog ka ahaa shirkaasi kana jeediyay aaraa fara badan oo ku saabsan wacyigelin dhinaca bulshada ah marka hore Kowsar Media ku soo dhawow waa mahadsantiin waa dhawa bal looga waran shirkan ah markii ugu horeysay aan kugu aragnay dalka Jarmalka diasporada Yurub maxaad ka qabateen maxaad isdhaafsateen ujeedada shirka muxuu ah maxamed aways muddo waa mahadsan tahay waxaan marka hore idinkaga mahad celinayaa inaad garateen in qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee caalamka daafihiisa ku dhaqan aad la wadaagtaan wixii aan kaga hadlaynay maalmihii la soo dhaafay shirkii qurba joogta Soomaalida uga socday magaalada Frankfurt Darmstadt ee dalka Jarmalka oo ay qabanqaabiyeen ururka weyn ee magaaladan ka jira Somali Culture iyo Integration ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii aan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka u bari lahayn xuquuqaha aasaasiga ah ay u leeyihiin ka qaybgalka dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ganacsiga xiriir wanaagsan ay ula yeelan lahaayeen hogaamiyaasha dalalka ama kuwa siyaasadeed ama dalalka ay degan yihiin halkan dadka jooga ee Soomaalida ah waxay ka kala yimaadeen dhowr dal oo haddii aan qaar ka tilmaamo ay ku jiraan dalka Faransiiska dalka Sweden dalka Finland dalka Portugal dalka Ingiriiska iyo Holland sidii aad arkaysay shalay doodii dhacday waxay ku saabsanayd qayb ka socotay dhinaca kala duwan oo is-eedeynaya ayaa looga hadlayay dhibaatooyinka jira looga hadlayay gaar ahaan wakiilada ka socday dawladda iyo kuwa rayid ah oo isdifaaci iyo qaabka corona ee loo isticmaalay dadka jooga qurbaha ay isticmaalaan iyo awoodaha xaddaafka ah ee booliiska u isticmaalaan shacbiga markaas ay u arkaan inay soo galato yihiin sidaan rajaynayo berrito ayuu soo gabagaboobi doonaa shirka waxaan u rajaynayaa inuu guuleysto shirka qodobada ugu muhiimsan ee aad ininka aad ku darteen ama aad ku biiriseen oo wacyigelin maxaa ka mid ah saddexda qodob ee ugu muhiimsan waxay ahaayeen isdhexgalka bulshada dadka Soomaalida ee qurba joogta ah inaanay sooc ka noqonin dadka ama dalalka ay degan yihiin dadka ku dhaqan ee native-ka ah qodobka labaad wuxuu yahay inaan barno xuquuqaha ay leeyihiin sida aad la socoto wali waxa ka soconaya Soomaaliya dagaaladii sokeeye waxa jira wali qabaa'il isdiidan burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya kadib waxa la qabtay dhowr dib heshiisiin ah marka aad aragto qodobada lagu heshiiyay dhamaantood kuwa qalbiga u roon laakiin qodob laga hirgeliyay uu yar yahay marka laga reebo in lagu heshiiyo dhismaha dawladda Soomaaliyeed saysadkii wali waa jira dulqaadka oo dadka Soomaalida aad ugu yar dartiis ayaana sabab u ah haddii dadka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa isu dulqaata mushkiladaha jira iyo caqabadaha hortaagan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya waa la gaarayaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo waa gartay adigu muddo dheer ayaad qurbahan aad dhex wareegaysay dhibaatooyinka dadka ku haysta Soomaalida qurbahana waad aragtay ha noqoto dhinaca guurka ha noqoto dhinaca muxuu ahaa caruurta waalidiinta dhalayn oo qaarkood aad arkaysa inay ku kala tageen qaaradda Yurub dhibaatooyin kale oo lamid ah oo coronavirus-ka ah oo dad badan galaftay Allahu raxmadee dadna ilaa iminka qaarkood ay la xanuunsan yihiin marka maxaa kaaga soo baxay qaaradda Yurub joogitaankeeda isfaham la'aanta u dhaxaysa qoysaska Soomaalida sababtana u noqda burburka qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha
waxaa asaas u ah isfaham la'aanta u dhaxaysa caruurta halkan ku dhalata ama kuwa la keenay oo ka taga afkii hooyadood ama hooyo. waxaa abuurmaysa isfaham darro u dhaxaysa hooyada iyo caruurta ay dhashay. kuwaas ayaa sababa dhinaca xuquuqaha asaasiga. waxaad malaynaysaa in caruurtu ay kaga horeeyaan fahamkooda waalidka dhalay. halkan culaysyo fara badan baa ka jira. jamhuuriyaddii Soomaaliya berigii aan anagu caruurta ahayn waxaan fursad u haysanay qoyskan ugu dhagan ama dariska nala ah iyo xaafadda oo dhan meeshii aan doonay inaan ka aadi jirnay oo la salaami jiray liisaanka maxaa lagu bariyay dadku is salaami jireen oo dadku xiriir ka fiican kan maanta u dhaxeeya. waxaad arkaysaa qof Soomaali ah oo dariiqa maraya haddii aad salaanto walaha waxaa dhici karta inuu tuhun galo ama shaki galo. sababahaas iyo kuwa kale ayaa asaas u ah khilaafka ragaadiyay bulshada ee Soomaalida ee ku dhaqan. waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo u adeega dadka Soomaalida ku dhaqan dalalka reer galbeedka ah ama adduunka meel kasta ay ka joogaan. waxaa iska jirta kooxo kamid kuwa loo adeego oo laftooda eedayma u jeediya kuwa ay u adeegaan kuwa ayaga ku shaqeystaan inay aaminaan in lagu shaqeysto in isaga iyaga madaxooda lacag lagu soo qaato. waxaan weydiin lahaa anigoo ka faa'iideysanayo fursaddan haddii lacag la isku siinayo in ruux adeeg kuu sameeyo baahideeda aad qabto adigu maxaad uga mid noqon weyday adeegayaasha dadka Soomaalida ee ku dhaqan qurbaha. waxaan rabaa fakarka ah in laga gudbo waxyaabaha aan ku aragnay Yurub. waxay la mid yihiin waxaan xusuustaa horaantii sanadihii 90-aadkii mar raba inaan sheego degmo ama tuulo ka tirsan jamhuuriyadda ayaan tagnay dadkii ku dhaqnaa oo biyo la'aan ay haysay. hogaamiyaha tuuladaasi waxaa halkaas jooga hooyadiis oo indhala, aabihiis oo sariir saaran, xaaskiisa, caruurtiisa iyo walaaladiisa caruurta ay dhaleen. waxaan u sheegnay ujeedkeenu inuu yahay inaan ceel u qodno. wuxuuna yiri laba lacagta loo qaybay qaybna idinku qaata qaybna aniga hal isiiyo. waxaan dhahnay adeegan idinka iska leh ceelkan biyaha laga soo saaro waxaad uga baxaysaan 40 kilomitir aad halaha waxaan uga jeedaa geela aad subaxii ku doontaan biyaha 40 kilomitirna aad soo noqotaan ay adag tahay. waxaad alaabada ku dhaqataan, waxaad cuntada ku karsataan, waxaad jirkiina ku dhaqdaan. haddii geeri idin gasho waxaad ku duugtaan yani inaad uga kaaftoontaan ceelka aan idin qodayn. adiguna aad noqoto hogaamiyaha ninka mas'uulka ka ah ceelkaasi biyaha uu soo saarana dadka lacag uga qaada dariska ah oo adigu aad meeshaas ka shaqaysato dadkiina ay biyo helaan. wuxuu sheekadii ku soo gabagabeeyay hawshiina waa dheeraatay. lacagta 3 loo qaybiyo qayb idinku qaata qaybna aniga isiiya qaybna ceelka ku bilaabo lacagtii yaa go'dayaan dhahayna. marka kuwa halkan jooga kama duwana fakar ahaan kuwii aan soo aragnay 90-yadii Soomaaliya joogay oo sheekadu fiican runtii sida hadda wasiir ka tirsan xukuumadda ay sheegtay abaaraha ka jira magaalooyin ama gobollo ka mid ah Soomaaliya. mid ka mid ah dawladaha Carbeed waxay keeneen in ka badan 27 container oo raashin ah. dadkii loogu talagalay wali lama gaarsiin. kuwii ka horeeyay ee la keenay qaarkood suuqyada magaalada Muqdisho ayay iib u yaalaan. dadku waxaas ka qaateen macnaha aragti ka qaateen in maslaxadii guud ay ka hormariyaan tagaarka ah. dawladda wax noo keentay dadkii loogu dhiibay oo aan loo geynin waa sababaha dib u dhigay dadka Soomaalida. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdicasiis xildhibaan oo isagu tafaasiil dheer ka bixinayay shirka uga socda qaaradda Yurub magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka oo ay soo qabaqaabisay community-ga dalka Jarmalka Aadan Xaaji Ibraahim iyo Cabdishakuur Jarmal. waxaa halkan ku wareysanayay Kawsar Media kusoo dhawow haddaad rabto xaqiiqo warar sugan tafaftiran warkaaga oo gaara meel kasta oo caalamka ka mid ah. بلانتين هو كوثر ميديا هموغان أو كمغنان كوثر ميديا ولبو أفلحي كوثر ميديا ولبو أفلحي لأنه ما وريبتو كل شادي ورنتا لأنه ما وريبتو كل شادي ورنتا كوثر ميديا ولبو أفلحي